kadib markii ay jaamacaddu guulo waaweyn ka gaartay dhinaca waxbarashada waxay qaadatay go'aan istaraatiiji ah oo ku saabsan in ay diiradda saarto horumarinta iyo abuurista aqoon sare. Tallaabadan ayaa ujeeddadeedu ahayd in la xalliyo heerka aqoonta sare ee jaamacadda iyo guud ahaan aqoonta bulshada Soomaaliyeed. Arrintan ayaa horseeday fikir lagu aasaasay xarun gaar ah oo cilmi baaris. Haddaba, waa maxay socdaalkii cilmi baarista ee jaamacadda SIMAD? 2010kii waxaa la aasaasay xarunta cilmi baarista ee SIMAD oo ujeeddadeedu ahayd dhiirigelinta cilmi baarista tacliinta sare. 2012kii waxa uu ahaa sanadkii ugu horreeyay ee la bilaabay soo saaridda cilmi baarisyada, waxayna jaamacaddu soo saartay 8 cilmi baarisood. 2014kii waxay bilowday jaamacaddu inay daabacdo cilmi baarisyadeeda joornaalada caalamiga ah oo laga xigto Scopus iyo ISI. 2015kii waxaa la helay deeqo lagu sameynayo cilmi baarisyo tayo sare leh, deeqahan oo ay bixinaysay Direct Aid, taasoo lagu taageerayay mashaariicda cilmi baarista ah. 2016kii waxaa la daahfuray shirka tacliinta ee jaamacadda si dadweynaha loo gaarsiiyo aqoonta. 2020kii tababarro cilmi baaris ayaa loo bilaabay shaqaalaha ka howlgala jaamacadda si loo xoojiyo tayada cilmi baarista. 2019 ilaa 2021kii wax soo saarka cilmi baarista ayaa si weyn u kordhay, iyada oo sanad walba la daabacay in ka badan 50 cilmi baarisyo. 2022 ilaa 2024kii jaamacadda SIMAD waxa ay gaartay horumar aad u ballaaran oo dhanka cilmi baarista ah, taasoo muujinaysa kobaca degdega ah iyo saamaynta caalamiga ah. Waxaa muuqata in jaamacadda SIMAD ay noqotay hormuud dhinaca cilmi baarista, iyada oo dhiirigelinaysa tayada aqoonta iyo saamaynta ay ku leedahay bulshada caalamka.